محمد وآله وصحبه وسلم. وهره waxaan u hambalyeeynaa mas'uuliyiinta qaranka mucaarad iyo muxaafadba mid walba magaciisa iyo maqaamkiisa jaamacadda maanta aynu martida u nahay madasheeda aynu joogno jaamacadda Badar ay ugu horeeyaan boorka gudoomiyaha jaamacadda Mubaarak iyo tiimka iyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda يا أرضيدا waxaan kaloo aanan ilaaweyn dadka maanta aynu ku faraxsannahay aynu isugu nimi annaguna aan u soo safarnay ardayda 600 ka badan ee qalin jabinaysa waalidiintooda garab taagan horena u garab taagnaa ee faraxsan iyo dhammaan marti sharafta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta dabadeed kelmaddu waa iska kooban tahay waxaa meesha yaalla dadaalka jaamacaddu ay soo gashay waalidiintuna ay galeen ardayduna ay udub dhaxaad u ahaayeen inaynu maanta markhaati ka noqonno ugana mahad celinno waliban aniga si gaara farxad gaara baan dareemaya mar waxa weeye mubaarak guddoomiyaha jaamacadda oo ilaa 3 xafladood oo qalin jabina najaax burcan noogu yimi maanta inay tahay maalintii koowaad aanu abaalka u celinayno oo aanu kala soo qayb galayno farxadda labaad 641 ka waxa ku jira 3 qof ama 3 gabdhood oo igu qaaliya oo qoyska reer Sheekh Cali Warsama ah oo curadii Sheekh Cali Warsama ay dhashay Sheekh Saciidna uu dhalay oo nala fadhiya farxad gaar ah bay ka qoys ahaan noo tahay maanta iyagana inaanu kala soo qayb galno iyo asxaabtooda wiilal iyo gabdho maanta halkan ku qalin jabinaya jaamacadda Badar waxa weeye indhaha maraga hadday tahay dadkay soo saartay iyo hadday tahay muuqashada ay ka dhex muuqato qaranka Somaliland anigoo ah guddoomiyaha jaamacadda Najaax oo aanu 6 sano 7 sano ka hor aanu heshiis wada galnay jaamacadda wada shaqayn muglana ay naga dhaxayso gaadhsiisan fakaltiyada manhajyadooda inaanu isdhaafsanno in badan aanu soo booqannay ardaydana aanu la fadhiisannay wixii ay halkan ka sheegeen ee guddoomiyuhu ka sheegay markhaatiga waa u furaynaa inaad adigu isu furto waxaa ka mudan in lagu furo markaa hadalkiisa waa xoojinaya laaxin laga jari maayo hay-adaha iyo qiimaynta lagu sameeyeyna dhammaantood waa la soconnay halka ay jaamacaddu marayso aad baan uga hambalyeynaynaa walibana laba kaclaynta dambe ay samaysay waxaan isleeyahay guddoomiyaha jaamacadda magacii baa loo qaado mubaarak baa la yidhaahdaa oo barakadii buu wataa insha allahu tacaala saasay ku barakowday jaamacaddu waxaan kaga baxayaa hal talo oo aan ardayda siinayo taladaasi waxay tahay culimadii islaamka waxaa la weydiiyey kitaabka minhaajka oo shaaficiyadu ku dhaarato ayaa waxaa la yidhi minhaaj yaa yaqaana dabeedna wuxuu yidhi ninuu u kala furan yahay baa yaqaana cilmi ama fakaltiga aad baratay waxaa aqoon u leh maaha ka ee balaas ku baxaya kadibna suuqa galay maaha aqoontii iskaga hadhay maaha ka cilmiga gacanta ku haya marna akhrinaya hadday jaanis u helo master gelaya ku shaqo gelaya ama lacag ha ku qaato ama bilaash dadka ha ugu anfaco ka cilmiga gacanta ku haya uu bartay kaasunbaa ku soo baxaya taana waxaa kuu adkaynaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam axabu alacmaali ila allah adwamuhu wain qal ilaahay umuurta wuxuu ugu jecel yahay kan la joogteeya haba yaraadee xasanulbasri baa la weydiiyey oo waxaa la yidhi nimankii saxaabadii way naga tageen waxay fuushan yihiin fardo boglaalan waa fardo welibana way boglaalan yihiin oo waa la diyaariyey waa la tababaray fardahaasay fuushan yihiin innaguna waxaynu fuushannahay buu ihi dameero boqna go'an oo dhitinaya waana dameer waana dhitinaya sidaynu isu gaadhaynaa buu xasan xikmad buu siiye waxa uu yidhi waddadii ma haysaa waddadii ay mareen ma ku socotaa haa buu
wuxuu ihi waddadii haddaad hayso waad gaadhaysaa marka waxaan leeyahay khubarada iyo macallimiinta iyo dadka aqoon-yahanka cilmiyadan aad barateen waddadooda waa gaadhaysaan haddaa haysaan insha allahu tacaala aad baa umahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. آدو ما